بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال كسر دوادا قيبتي لبعض برنامج كيني شيكة شاه أو قلبت أن هالكن يكسر ترين دونو شيكوين هذا حس بدن لقنا يابا إن هذا وقصشان وحنا عيجا فديا إنك سمعت تيتل كيدي وأبوان محمد أحمد نور لامبت أبوان قلت ما قاعد وديدي واحد تاني وتيتل كاسي halka ah inoo joogo maadaama inaan magaranaysaa mowduucyadii suugaanta iyo tawleedana ku jirin marka ka waran galabta maxaad halkan ugu haysaa barnaamijka sheekaysa waxaan u haynaa inta la gaarin isma inooga teatarka aan isugu yeerno waaye ma isku ogeyn waxaad xasuusay bari aan joogay Nairobi baa niman saaxiibada iska bulaaba xaafad bay cunto kula haayeen marka ku yar baa wuxuu bilaabay hooyo abtiyaasha helay rido wili heer ladan jooga moogtay niman iska bulaa wargaarkaaga may u diiday maalinka dambe loo riday marka saxamadan maartay waxoogaa dheehalehe shimbiruhu ay ku sawiran yihiin iyo waxyada iyo yaa loogu wada riday maarin jeena ka barantahay rag iska bulay ahay laba goorba waa la qaaday kiira saxanka qiiqayo arkay suudeeyo kasay tiraasi abtiyaal ma xishoonayaan sayta maxaa dhacay shimbiri baa nagu soo saareen waligi buu arag markii saxanka salkiisa marka hadda shimbiri baa nagu soo saartay inta talka la suu yeedhamay niyoorta maadaama maartay anagu aan teatarka weyn oo waqti suuqii horeysay xataa isbarnay shilga ku bartay waqtigii suuqii horeysay adoo gabayaan ku bartay adoo masrax taagan oo gabayaan ku bartay marka hadaynu isba hornimaamo inuu soo fariisano aan wada socono inaan teatarka kugu yeedho mooyaan heblow caadi kuma oran karay marka laga soo gudbo qabta saayna halkan loo diyaarsan yahay waa casarka oo dhacay gud ku sii cararayso sheeko barnaamijka sheeko iyo shaah camuutiisi ka baxa maxaad jeclaan lahayd galabta barnaamijka in qaybtiisa labaad soo qaadan niyo horta waa soo sheegtay xagga horta suugaanta hadda fasax baan kaga jiraa maadaama uu yahay barnaamijku sheeko iyo shaah dhowr sheekan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkaas inta badan waa kuwa Soomaalida dhexdeeda ka dhacay waxaa jiray Soomaalida ka aragtay qayb war heer webi oo beerato qaybna waa geelay marka webi raacsan beeralaydu waa reer webi geelayduna waa hawdkii jirta waa geelay waa waramalay qoladaas marka hadii goor waxa dhib badan geelayda beeralaydu ma dhib badna marka hatta dandaansiga hore waxa iska le beeralayda laakiin ma sii dhib badna waxoodu waa iska booto marka way ciloobeen marka rabshad baa kala gaadhay rag baa ku kala dhintay maalintii dambe yay beeralay shirtay qoladii reer webiga beeralayda ah waxa la geelay in badan bay dhib ugu samaysay maanta wataan ku dhufanno waa inay yaabaan rag aad badan bay diyaariyeen geelay qoladii reer webiga geelaydii oo tuulo yar oo ay degan tahay yay weerareen tuuladii bay bahal rasaas oo dadka ka qaadeen dam tuulada hal qori baa yaal halka qorina hal bar baa ku jira hal xabaa ku jira ninkii halka qori ka haystay tuulada ee halka qorina halka mar ku jiray wuxuu siiyay waxaad hubta ku rid uu shishay waana habeen humaaga markuu xabada tareysada la soo rido yuu arkaya dhac buu ku siiyay colkaba ninkii wato isha kala helay colkaba ninkii wato yuu isha kala helay nimanka reeruhu marka qaab ay u hadlaan beeleen aksan gaari leeyin marka argeedo way ku taala argeedo way ku taala argeedo way ku taala way dheel marka geedo ninka colka wato bandulaha waa la qaaday wabigii iyo halkii beerihii deegaankii deganayeen bay geeyeen geedo xabad ku taalo lagu barooreeyo barqinkii markay tahay baa kuwa iyagoo tuuladii jooga dabcan baa u soo warramay war waxa leeyahay waad naceebaysaniyo qoladii geelay ee aad ku taqaaneen hubka maba aysan haysanin bay dheh waxba hadda hal bad bay ka haysteen halka midna hal bad baa ugu jiray bay dheh abkay doole dilo dadno lama usoo dahabi waad naceebayseen bay dheh hal mid baa ugu jiray markii geedo ku dhacay marka waxa leeyahay nimankii hadda ku noqon waana maalin barqina umad waliba caaqil bay leedahay oday ay herobigu lahaayeen baa barka kacay raggii oo diyaarsan oo inuu barqan cad bahasha gal raba arhooy waraan idin haaya maxaa si mid haysino saleem xasiya nimankii geelay oo gudcure halka xaba isha naagala helay ما العدي من نوضة هم بي والله اللي بدو وانا قليه هم بي يا نهجة يا نهجة والسؤال مركع عقلك سليم كو قادن كرو والصومالي حتى أنا وحكي برته الرجينيو صابته ان تدبير إني بوين لوجلا معه وحين من كي جيلي
oo gudcuray halka xabba isha naagala helay maalin cadeey ma noo daahan wallahi labadaba waa nagal helaan wallahi labadaba asna yaani heka waxa u sawiray boqolkii nin oo u salaayo raggi xalay halka mid haystay oo ay qoryo u buuxaan oo qoryo badan haysta mid walba laba indhood kaga dhufan bay uu arkay labada qol halkii bay ku heshiiyeen marka nabad baa ku dhacday halkii xal waara yeelatay marka sheekadu waxay ka dhigan tahay halka xabo ee habeenka rasaasta meesha yaali ninka lala helay dilay ayaa waxay xal u noqotay dhiig badan oo gadaal ka daadan lahaa ku badan oo daadan lahaa halka xabo ee gudcuray sheekada waxaa leedahay isha naagala helay gabigeeda ciwaankeeda isha naagala helay isha naagala helay baa leedahay xogaa la joodo in la waafajiyo marka lagu hadlay isha naagala helay bay noqon lahayd moogtahay markii tooda loo kaco isha naagala helay weeye marka isha naagala helay marka sheekada isha naagala helay marka halka ku dhamaatay sheeko kale ana iiloha baa la sheekada kale ana iiloha baa la yiraahdaa ana iiloha ooyay way ana ooyay way qoladii geela faankoodi baa waxa u joog waayay qoladii beeraleyda geeli bay abtirnayaan waxay bay sheegayaan aydin labalki hoor waxbay ka sheekayaan intaas oo boqol buu yahay marka nin reer webigii carruurtiisa Mareykanka tagtay wuxuu damcay inuu sheekada geelida iska geejiyo wiilashiisa wacay marka wixii aaba ma maqlaysin haabal nimankii geelay aafaankooda loo joogi laayay waa in geelow la iibsho geel baa loo iibshay aad badan marka dhul waxaa jira libaax galeen oo inta badan laga faagto aad loo gelin dhulkii libaax galeenka hayd budagay isagoo uga jeeda inuu nimanka ugu faano marka ninkii wuxuu cunay soor nimanka beerleyda waxay cunaan bahal soor oo adag bay cunaan oo bahal irbala dhaha lagu waxeeyay oo adag marka baashi buu cunay caanina wuu cabay ardaagu seexday marka yaani soo faana libaax ban ardaaga u seexday qoftii sibaa tiri arhooy meeshii libaaxay leedahay inta iska odbayt wixii arnaga aamis asbaxaya inta ka baxlee libaax ma asnaha sayta maya inta ka baxlee aqalka galbulay marka aqalkii bay gashay ninkii wuu seexday soo raad buu cunay aanana wuu cabay baalkii libaaxu waa balaayo halkii uga soo dhacay halkii kalida ahayd ayuu ku dhuftay bahal rabaaxa jig wiiqdi bay ku toostay marka in soo cunay arigii lacabi waad garanaysaa halkii buu sidii isagoo rooti suugaynaya ama baashi muufada ma garanaysaa yuu xogaa halka ku ruqushay qaqdiisa dibana uu la tagay wiiqdi hore ay kalida kaga dhuftay way maqashay iyadu hoos bay u ooyday marka barqinkii markay tahay iyo qola soo martay warbaashiya ka ooyaya ana iilaha bay tagabadhi maxaa dhacay arinta iska odaa ka waay karangabada iska odaa iska waay inta laaga soo dhacay biiq aan laaga siiyay alaas ala waxa iska qaad waxaad meelo badan baa soo martay aan noqoto dalka dibadiisa ilaa Canada iyo Kenya hadda aynu joognaba waxaa jira mararka qaarkood waxaad kaga hadlaysay meel ka mid ah magaalooyinka ku noolay waqtigaas shacabur la yiraahdo Kikuyu miyo aan ma garanayo صح ma luqad Kenya kolkan Kenya ku imid marka aba shacabkaas iyo qisadiisa waxa uu ku yimid iyo isaga laftiisa waxa jeclaan barnaamijka galka la wada dhiyo shacabka wax yar baan ka soo qaadanaynaa markaan tagay Kenya ahay xilligaas hal abuur ma ahayn laakiin wala soo yar hayay baan maraynayaa markaan meesha tagay waxaa jirta askarta Kenya waxay ku oranayaan laata kumbishe ama laata commander bay ku oranayaan haddaad yar macnaheedu wax marka kan sharcigaaga oo kale marka hadday korkaada sharci haysanin laata beesa ku xigta lacagta keen baa ku xigta way isdaba yaalaan marka xilliga aan tagay nin aad u yar baan ahaa marka dhalinyarada yar inta badan waxay ku dacwadaan ma gaarin xilliga aan qaadan lahaa marka sheekadu marka ma gaarin baa ku dhex jirtay oo ku dhex jirtay sheekada laftigeeda bad of fiko kalmada bad of fiko waa ma gaarin marka askartii marka waa la xiray humaagi waxaan sawirayaa sida wax u dhaceen marka nimanka halka degan ee Soomaalida ee deegaan dadkeena macnaheedu Soomaaliyeed ee runtii aan wada dhalanay ee halka degan
niman la dhaho kukuye ka xigsadaan Kenyaanka kale nimanku waxay u kala baxaan waa sida Soomaalida qabiilay kala leeyihiin kukuye iyo Kalaajiin iyo Mukaamba iyo Giiru iyo mataqaanaa Turkana iyo Masai iyo qabiilay leeyihiin marka waxaan garan waayay waxa ay kaga xigsadeen Kenyaankan soo wadaagay inay kala garanayninba iyagu ay kala garanayaan dabcan kukuyada waxay ka dhiganayaan dad jifa ah kuwa kalena way cadaawadayaan oo wadad qalaad bay dhaxaan waa Soomaalida niba dhahaysay ogow marka waxaan dareemay dadka inay ka xigsanayaan sabab ay ku xigsanayaan waa fahmi waay waxay ku bilaabanaysaa horta waa saar shacbur awey oo gaaban marka sidaan ku bilaabanaya kolkaan Kenya ay ku imid laatee kumbusha dhahdeen kamaandha ma haysataa beero fiikan ka iri kamun beesa dhahdeen akuna baan ka iri askari kaba weyn qabo tintiisu kadoonta oo ishiisu kariirtaha kalkiya labadayda kure katiinad ku kaawiyo kadle hare ku yiri Soomaalida Kenya iyo kuwan kaalmada ka rabay mujiinga igu dhaheen doqon baa tahay mujiinga igu dhaheen kalaankii weerahood ka abu hadalkooda ha anigu ku subaan wataa kamaandhana waan rabaa kurada waan ridi lahaa kukuyadu waa reer tolkay Soomaalida kaabiga jalwada waa yeelkadood Mukaambana ma aqaan ugaali baa noo karsami sakuma noo agta kula chakula akuna shido hata kidogo wewe waacha mijaza ameliyada shaka waacha mijaza aliyada shaka oka marka waayahay saaxiibayaal wali halkaan noo socotaani waa Amuud TV barnaamijku waa sheekada shaah qaybtiisa labaad oo galabta halkan idin kula wadaagayno waayahay maadaama waqtigu cararayo oo cadcadina ay dadka naga gashay shaahina naga labeenaysa waxa jeclaan lahayd inaad nagu soo xidho qaybta u dambeysay sheekada barnaamijka nagu soo xidho waxay tahay Amuud Media sheekada la yiraahdo Caasha sheekada Caasha wadaad iyo wadaad baa waxay lahaayeen ari marka meel yar go'an ay degnaayeen habeen walba ariga waxa uga soo dhacay libaax hal neef buu la dhacaa ariga neef ka dhaqaaqaya habeenka dambe tuu heerka adaan inuu nin iska dhig baalkan kala waa inaad soo disho aad maarta iska daabi jabal lama ganahay wuxuu u fikro inay iska daaw dhahaba waxa lama ganahay baad ogeyn yo bartu uga soo dhici jiray libaax meel buu uga soo dhacay moogtahay meeshii wuxuu ka qoday war weyn oo hogga korku uga saynsaabay libaaxii wuxuu soo socdo halkii markuu marayay si uga boodsiyo booshii ku dhacay jug salku tagay soo bood markuu soo meel dhaxu ka laabtaa kama soo bixi karo iyadana wuxuu ku yiri habeenkii oo dhan ilaa galabnimada ilaa habeenkii biyaha u karkariyay dhabac gool ku kariyay wuxuu biyahaas u yeena saaha u boodaan markuu baalkii meesha ku dhacay uu baaldi wuxuu darsaday sakeel kulul oo bayl ah libaax aad u yiri biyo ku rogay qoftiisii wuxuu dhahaa marka caashay waa sakeel biyo ay keenay kulul sakeel biyo keenta ugu rogaa libaax markuu soo basno caashay maqlaba dib u sii boodaa waxaan gubayaba caashu umaleeyay waxa caasha la dhaho waxaan gubayaba caashu mooday gabigiisu sakeel kulul bay keenta ugu rogaa soo bood bus hadana caashay ugu dhahaa moogtahay waa u dhiibaa markii u dambeysay يا لباحي أنا في هايسو يا سوبودي وإسنا سكالكي وسأقول لك لها غادو كسو يدي يونيكي نحاي مركا هجيبه كل عاي شوك هالك اللي سوتي لباحي ده نك بالكم كلنا كوصل عمر مونا قرننا وحوسي والله ومع العاشية وصار حي استقلفتك سنتو قد ماذا صاري يوجي كسوبودي أو كدك تيسلان بنان كسوبودي لباحيه وقرن هالكن إسكتشوجا يوضع واقعي هير اللي بحد باوي نينكي oo murmuray oo gubtay war maxaa dhacay war habar gaala iyo oday gaalo halkan jooga u baasaa ay galay aad jeedaan ara la ismaray iska daabale jabaan la maganahay caawan weerareenay habeennimadii markii la joogo iyo qoftii tiri war haad san macquul ma aha in ayri baalkii libaxyo u yeedhanay wuu diiday qoftii orad bay sii daysay heerihi kale u qayliday isagii geed ariga u dhow iyo fuulay oo dheer geedkii markuu fuulay libaxii baa yimid oo dhowr boqol ninkoo geedkii saaran bay arkeen waa ku yiri ninkii idil habartii baa maqan biyo gaashay laakiin ninkii waa waxa la si kale kuma gaarnay libaxba waa inuu libax fuulay oo libaxa u korayo ninka soo qabto libaxyadii markuu libax fuulay libaxi u dambeeyay u koreeyay markuu laacis yiri ninkii
cabsi weyn dee way soo wajaday moogtahay naftii baa sayd buu yiri caashaay buu yiri moogtahay caashaaydi buu yiri libaaxyaha waxaa u hooseeya libaax dhaawac ah ya u hooseeya libaaxi u hooseeya dhaawac ah yaa wuxuu maqlay caashaay buu maqlay marka wuxuu wallahi caashii baa bilaabay marka marba hadduu caashaay yiri wixii ku laaba bilaabay libaaxyadu ka hoos baxay marka bam libaaxyadu waa la soo daatay mid garac go'a mid lug jaba mid waa la baabay libaaxyadii fiigi baa cararay meel baa la tagay isagii baa yiri warinkaar kugu dhacday maxaa sidan ugu gashalay heer libaaxada waa jabisay markaan oday gaalka qaban lahayn oo aan saa u laacanay maxaa raga uga hoos baxday ma aragtaan biyo saaliha xasaay galib saaliha barti gaashaay iyo gaalka wuxuu yahay hadaan anigu markay idinka hoos bixin saan bad wada noqon lahaydeen caashu waa wuxuu yeeray waa wixii saay galib caashu hadaan sii joog lahaa hadaan sii joog lahaa saan bad noqon lahaydeen caashihii baa soo socday